halkani waa webiga Furaat. Rasuulka naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee ayaa sheegay in webigan iyo sidoo kaleba webiga Niilku ay yihiin webiyo ka soo burqada jannada. Guritaanka webigan wuxuu bilow u yahay dhamaadka adduunka. Waxa meesha uu dhaco ka soo bixi doonta buur dahab ah oo ay dadku ku dagaalami doonaan. Xilligan aynu joogno, webigan ayaa maraya heerkii ugu hooseeyay ee ay abid biyihiisu gaaraan, waxaana qaybo badan oo ka mid ah daafaha webigan ay noqdeen kuwo aan biyo lahayn. Haddaba muuqaalkeenna maanta ayaynu ku dul istaagi doonnaa webigan, meesha uu dhaco, iyo sidoo kaleba dhacdada uu sheegay nebigu naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee inay ka dhici doonto webigan. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Waaberi Media. Ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Inta aynan u gelin muuqaalkeennan, waxaynu bilownay koorso cusub oo aad ka baran kartid qaabka muuqaalada loo sameeyo ama video editingka. Qiimaha koorsadan wuxuu ahaa $15, laakiin bishan aynu ku jirno waxaynu ku sameynay qiimo dhimis gaaraysa 20% adigoo ku iibsan kara $13 oo kaliya. Qaabka aad u iibsan kartid waxaad ka helaysaa kommentiga ugu horeeya muuqaalkan. Mahadsanidin. Webiga Furaat wuxuu nolol iyo isha biyaha ugu weyn u yahay dalalka Turkiga, Ciraaq iyo Suuriya, oo mid ka mid ah barwaaqooyinka Alle subxaanahu wa tacaala dhulka ku manaystay. Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa axaadiis badan ku xusay Furaat, kuna sheegay inuu ka mid yahay webiyada laga keenay jannada ee dhulka xaggiisa loo soo qaaday, sidoo kalena guritaankiisu uu ka mid yahay calaamadaha qiyaamaha. Furaat waa webiga ugu weyn uguna muhiimsan galbeedka qaaradda Aasiya iyo si guud dhulalka Shaam iyo Ciraaq. Hareeraha webiga waxaa ka dhismay xadaarado waaweyn oo dunida caan ka noqday, sida ilbaxnimadii Baabil, boqortooyadii dhulka labada webi, iyo kuwo kale oo ka bilaabmay hareerihiisa. Webigan wuxuu ka soo bilowdaa halka ay isku darsamaan labada webi ee la yidhaahdo Muraat Su iyo Kara Su ee ka soo burqada Turkiga, wuxuuna dherarkiisu gaarayaa 2780 kilomitir, isaga oo isku mara dalalka Turkiga, Ciraaq iyo Suuriya. Dalka Ciraaq ayaana ah kan qaybta ugu dheer haysta, sidoo kalena hoy u ah ilbaxnimada iyo magaalooyinka qadiimiga ah ee la soo hadal qaado marka laga sheekeynayo Furaat, sida magaalada aadka u faca weyn ee Baabil, Basra, Kuufa, Karbala iyo Faluuja. Webiga Furaat ayaa ugu dambeyn ku darsama webiga kale ee Dijla, waxaana halkaasi ka bilaabma webi saddexaad oo loo yaqaano Shat al-Carab, kaas oo ugu dambeyn badda kaga dhammaada dhanka gacanka Carbeed. Waqtiyadii hore waxaa loo yaqaanay webiga weyn, wuxuuna ahaa xuduud ay boqorradii waqtiyadaa jiray ku kala calaamadaystaan dhulalka ay xukumaan. Dhulka u dhexeeya labada webi ee Furaat iyo Dijla ayaa ahaa dhul ay ka bilaabmeen ilbaxnimooyin waaweyn, sidoo kalena waxaa ka jiray loolan xooggan oo ay ku hardameen quwadihii waqtigaasi dunida ugu xoogga roonaa ee Roomaanka iyo Farisiyiinta, waxaana dhulkan waqtiga loo yaqaanay magacyo dhowr ah, sida dhulka labada webi iyo dhulka bari iyo galbeed kala qaybiya. Biyaha webiga Furaat ayaa inta badan ka yimaada barafka ka soo dhalaala buuraha Toros ee dhaca Turkiga. Xilliga uu ugu biyaha badan yahayna waa bilowga xagaaga, marka kulaylku dhalaaliyo barafka buurahan saaran. Waa isha biyo ee ugu weyn Suuriya iyo Ciraaq, waxaana la odhan karaa nolosha labadaasi dal inteeda badan ayaa ku tirsan Furaat. Magaca Furaat waxa uu macne ahaan noqonayaa biyo macaan, halka mararka qaarna lagu fasiro macaan oo keliya, waxaana magacan lagu sheegay Quraanka tiraba 3 jeer, kuwaasi oo dhammaantood tilmaamaya nimcada Alle subxaanahu wa tacaala oo dhulka ku galladaystay ee ah biyaha macaan ee la cabo. Sidoo kale nebiga sallallahu alayhi wa sallam ayaa axaadiis dhowr ah kaga warramay Furaat, sida ku qoran Saxiixul Muslim. Nebiga naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee ayaa yidhi, Siixaan, Jiixaan, Furaat iyo Niil dhammaantood waa webiyada jannada. Jiixaan iyo Siixaan ayaa ah webiyo ku yaala iyaguna bartamaha Aasiya. Nebiga naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee ayaa sidoo kale sheegay in webiga Furaat uu qalali doono ama biyihiisu ay guri doonaan, taasi oo muujinaysa calaamad ka mid ah calaamadaha saacadda qiyaame. Axaadiista laga soo wariyey nebiga naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee ayaa u dhignaa in qiyaamuhu uusan dhici doonin ilaa uu webiga Furaat engego ama qalalo, hoostiisana ay ka soo bixi doonto buur dahab ah. Rasuulka naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee ayaa yidhi, qofkii goobjoog noqda yuusan waxba ka qaadan. Isla xadiiskan waxa uu nebigu sallallahu alayhi wa sallam ku sheegay in dadku ay isku diri doonaan dahabkaas
boqolkii qofna 99 ka mid ah la dili doono. xadiiskan ayaa muujinaya in guritaanka webiga Furaat uu ka mid yahay calaamadaha dhicidda saacadda qiyaame. sawirradda yaxgacmeed lagu qaaday 2 waqti oo kala duwan oo kala ahaa sannadihii 2006 iyo sannadkii 2009 ayaa soo muujiyey in biyaha webiga Furaat ay si baaxad leh hoos ugu sii dhacayaan. shabakadda Aljazeera ayaa sannadkii 2020 tabisay in webiga Furaat uu aad uga biyayareeyey dhanka Siiriya. waxaa xigtay muuqaallo warbaahinta qabsaday sannadkii 2021 kuwaasi oo laga soo qaaday qaybo dalka Siiriya ka mid ah oo webigu uu joog hoose gaaray. sannadkii 2022 Aljazeera ayaa mar kale tabisay warbixin muuqaallo ah oo muujinaysa in qaybo badan oo dhulka Ciraaq ah webigu aad isku guray. marar badan ayay dhacday in uu webigu biyo yareeyo iyada oo loo sababeeyey biyo xireenno Turkigu dhistay, kuwaasi oo yareeyey xaddigii biyaha ee soo aadi jiray Ciraaq iyo Suuriya. mana dhicin tan iyo inta taariikhda la og yahay in biyaha webigu ay ilaa xadkaasi gaaraan waqtigan ka hor. sababta ayaan si rasmi ah loo ogaan, balse waxaa lagu sheegaa in 2 arrimoodba ay keeni karaan. midda koowaad oo ah biyo xireennada waaweyn ee aynu soo sheegnay in Turkigu uu ku safay dhinacyada webiga Furaat si uu kayd weyn oo biyo ah uga samaysto. biyaha webigan oo dhankiisa ka soo bilowda Turkiga ayaa sannadkii 1992 daahfuray biyo xireenka Ataturk, kaasi oo laga dhisay dhinaca webiga Furaat. biyo xireenkan ayaa loo leexiyey 48 bilyan cubic mitir oo biyaha Furaat ah, taasi oo yaraysay biyihii gaari lahaa dalalka kale. arrinta labaad ayaa sidoo kale lagu sheegaa inay tahay isbeddelka cimilada oo saameyn xooggan ku yeelatay barafkii ku samaysmi jiray buuraha dushooda iyo biyo dhacyadii badnaa, kuwaasi oo ku soo burqan jiray isha uu ku dhasho webiga Furaat. bishii 8aad 2022 xukuumadda Ciraaq ayaa sheegtay in haddii xaaladaha keeni kara in biyuhu yaraadaan xal loo heli waayo, ay dhici karto in ka hor sannadka 2040 webiga Furaat biyihiisa laga waayo qaybo badan oo dalka Ciraaq ka mid ah. mar kasta oo ay biyaha webigu hoos u dhacaan ama qaybo ka mid a dhulka uu maro laga waayo biyo, waxaa warbaahinta dunida muslimka qabsada warbixinno laga soo diyaariyey webigan, iyada oo la isxasuusinayo xadiiskii uu nebigu naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee ku sheegay in webiga Furaat uu qalali doono, calaamadna u yahay bilowga dhammaadka adduunka.